كسر نفسي عشرة أنا لا لعك هاي لعبت دحلو مش تبغى زرار يا قرصن هذا مد لباس مد قرص دون يعني مقصر على ولا مد قرص على والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكميس كمانك يوتيوب عصبنا يبالوجي هوا إن سلامك سدونك جوبتي ولا شيء بدقن أنت مقالكي تقان آدي أنا وسلامة يا أنت كلنا خليه أنا سلامك مشكلاتك السوقودي إن عاوحن مهمة دارو ما ده وحاوها ولا شيء إن يوتيوب كذا للسود ويو يوتيوب عصبي فرطي وحاربة إن لو شجريو سبسكرايب لو صار واي وحمانت بيسكو عاون كرو وحاوي شير سبسكرايبك marka hay aad ma usoo dhaweynaa youtube miisana kugu soo dhaweynaa maadaama youtube cusub furdo kala kacsantahay saaxiib caadi ma batid aan youtube ku soo furo li waa mana furto saan usoo taaganahay isla meeshii la waa soo dhaw unu kale sama marka hay asxaabi waxay idin sheegayna waxyaalo badan oo idin xiisi geliyaan in soo wadnaa ani walaashayba iyo asxaab fara badan ba maasha Allah horta rubaayada waa soo jili wad u aragteena u maleynaya haddana waxyaalo fara badan shaxtiraha ahaato dhanka sheekooyinka ahaato dhanka mujaajilada ahaato hataa heesaha marmar aan isoo gelinaa ku dhahay marka miskiin rabaa maadaama ida youtube ka ay leedahay inaan su'aal xoogaho horta maxaa dhahay waxaan ku weydiinaa mataqaanaa adduunka maxaa ugu neceb tahay adduunka maxaa ugu neceb tahay adiga waxaa horta weydiin kartaa saddex wax adduunka ugu necebta sheego saddex wax oo adduunka ugu necebta in lagu sheego horta number 1 waxaan necbaa qofka beenta badan beenta aad u necbaa number 2 waxaan necbaa rufiyaanimada qof isku diro dadka isku dira necbaa Allah adduunka ku necbaa beenta iyo dadka isku dira adduunka ku necbaa wax kale ku weydiin sida ay weydiina ku weydiina waxa kale ku weydiinayo waxaa waaye saddex wax aa lagu dhahay oo adduunka ugu jeceshahay dooro maxaa dooran lahayd lacala saddexda wax maxaa la midii sheegay saddex wax adduunka ugu jeceshahay adi nafsadaada jeceshahay dooro lagu dhahay meel lagu geey maxaa dooran lahayd lacala marka wax kasta nafsay jeceshahay la baa lacag hay lacagta baabur qurux badan mid lacagtaas baabur ah wax kale shan yaa muslim lacagtaas baabur ah gato maxaa intaas la jecel lacag la jecel wax kale bajecel lacag daayar wax kasbeelayo hay wax kale ma ku weydiiya fanaaniinta hadda joogaan laba fanaan aa lagu dhahay mid labada fanaan waa laba nin midkaad guursan lahayd marka magacooda kuu sheegaa dayaxdal nolosha sultaan seeraan dayaxdal nolosha sultaan seeraan yaa guursan leeda mid labadaas mid guursa adduunka dhigaa nima kusoo haraa lagu dhahay mid guursa labada maya adduunka laasma inaad guursataa nin nama jirabo labadooda mid guursaa lagu dhahay labadana naagay qabaan waad ogtahay sultaan seeraan su-aalaha weli waa kugu sii wadaaya ilaa adiga ka daasho wax kaloo ku weydiinaya waxaa waaye nin faqiir soo marin mugo suka wax saal maxaa ka wataade nin faqiir laakiin ku jecel lugaha kuu dhaqaay wejiga kuu dhaqaay lugaha kaa shuuminaay wax kasta kuu samaynayo kudhe laakiin lacag ma haysto waa faqiir laakiin wuu ku jecel yahay nin taajir oo oday oo gorka intaas joogo oo lacagta adduunka haysta keeba raaci leeda ninka faqiirka oo ku jecel lacag waa la helaa balse jecel iyo farxad lama helaayo okay ada su-aal weydii marka yaa ka dheh animiya markay tariis soo jaasba ku jafay oo ay jaftay waxaa ku weydiinaa horta fanaanada tahay soo mahan waa ekahay dee fanaanad baa tahay maanta fanaanad soomaaliyeed tahay fanaanad wax maxaa la dhahay la yaqaanaa tahay hibadeganta taqaantaan garin hadda barta waa tanaaya wajixunta waxaa ku weydiinaya fanka wax makaa weydiin karaa xaggiisa weydii iska galgelhayo
fanka ma waxaa u gashay inaa heer sare ka gaarto oo fanaan kaala iska arag noqotid mise waxaa u gashay baashaal inaan iskaga baashaalle fan heer maba laga gaaro dalaga xasan caasi matar iyo xaliimo qaliif ma wala unaxariis ooba dhimatee xasan caasi matar iyo hiba nuuri iyo dadkaasi weynka horumarka gaar leh fan horumar lagama gaaro horta darunta rabto magacana kama rabaani waa iska baashaalle hamigayga iska baashaalle fanaanad inaad noqoto way caalamka laga kasaa mugu galmiya iska baashaalle su-aashan weydiina waxaa waaye maadaama fanaanad tahay hadda soo baxayso aadna u cod macaan fanaanka jecesha inay hees la soo qaado ayagu fanaaniinta soomaaliyeed ragga fanaanka jecesha inay hees la soo qaado wiilkan magaca wadaagno fala degan waxaa la qasbaa fanaan soomaaliyeed maxaa weliba fanaan soomaaliyeed halkaan aan ka salaamaya fala degan anihiiba degan heesta koowaad oon soo qaada lamaanaha adaan kula soo qaadin fala degan iyo adiga waxaan idinka sugaynaa hees cusub oo weliba lamaana ah sax hiboy adduunka waxaa ugu nacab tahay adduunka waxaa ugu nacbahay beenta cayaanada iyo xasidnimada ha wallahi xasidnimadaas iga maqleed mogta ani daabay xasid ma jecli soo maaha xasid horumar ma gaaraba fanaaniinta hore kuwa dhinta la naxariista kuwa jooga fanaaniinta hore fanaanadee ka taageertaa fanaaniinta hore kuwa dhintaan mise kuwa nool kuwa dhinta iyo kuwa dhintaa fanaaniinta ka taageertaa kuwa dhinta allah u naxariista xalimo qaliif mawaad boqorada codka ilaah u naxariisto iyo maxaa salaamta baa labaas aan jeclaa maasha allah boqorka codkaasna ilaah u naxariista labada way dhinteen fanaaniintaada joogan kuwa had joogaa hada fanaaniinta had jooga dhan waa wada jeclaa waa wada taageeraa laakiin waxaa aad u taageeraa nadiir nayrus halkaan ka salaamaya boqorad nadiir waa ku salaame gabadhana qaalida ah waa nadiir nayrus taageero buuxaa lagu yahay bismillah shaadishar labado ya waa taageera labado weliba adina nadiir saa u taageerta hataa nadiir nayrus hasaga duubaysaa qof kale ma taageerta miyaa sidoo kale idin fartuun barin waan taageera waan jeclaa iyadana nadiir nayrus intay soo bixi ka hor fartuun barin baan taageeri jiray sida dhegeysan jiray maasha allah ilaa haddana fartuun barin waan jecla waana taageeraa nadiirana sidoo kale صح halkaan ka salaamayna nadiir salaam de gabadha ma ku salaam boqorada friend saan nadiir oo hadalna ma sha Allah raggan ragga fanaaniinta ragga markasta hadda bariyaan hees dhegeysanin baan fanaaniinta ta kale ka saynin hada hees cusub soo qaaday wixii kalaba yani waqtigaas ka noqday ma hees cusub kuma xir laakiin fanaanka ka taageertaa fanaaniinta hadda jooga kulli waa wada taageera laakiin fanaanka si qaas u jeceshahay oo markuu heesiis dhegeystaa suldan seerar laweena suldan seerar adigu waa ii guurisee hadna ma taageertaa ya suldan ku salaamayna boqorka codka horta suldan waayay damba fanaaniinta luuqa giliimistira libaaxa codka aada u salaamayna isagana maasha allah waa boqor cod macaan fanaaniinta dhan wada soo wada baxay wada cod macaan yihiin kulligood wax kala yaraysta ma jiraan laakiinse marka la dhaha heesta had dhegeysataa wax isaga duubi laheyd lacallo oo maxaa la dhahaa badanaa inaan dhegeysta jeclaha suldan seeraan maxaa la dhahaa marna waa wiil fanaan oo lagu qaali ah marna waa fahmi kartaa hadee waa dumaashigeed maa la dhaha ya kaas iska barano walle dumaashi mar labaad waa ku salaamna hay balyeynayna والله سلطان وين ما ودش ما بكور هاي كورن وحي أكيد وينكاس وحا قلنا هاي هبرر مرنا وحا قلنا هاي إدو مرنا فنان كين هذا لك قدر كيف لا همبلينا أركي لو مكانا ودش الدهاي مركا عن كو أركي يوتيوب لكن سلطان أركن همبلي إلهي كودا يقول كيرك إنه كسب بيري هذه يو أمون حاسك قاري هيا أصحابي جودهم برنامج كمان تلقى برنامج مدي كرنا ولا شكيس يعني ولا شيء ولا شكيس إنه يوتيوب كده كسب أنكسو دوينين waxaan idinka xusanayna subscribe-kina noo saartiin like share wax kasta iyo wax idin xiisa geliyo riwaayada ahaadeen maxaa ahaadeen maxaa la dhahaye sheekooyin aniga horta dhanka sheekooyinka aad ugu fiicanayo waxaad hadda ka hor iga daawateen oo maleynaya xiisaha wararka iyagana anoo sheekeynayo hataa soo dalbaday inaan mar labaad soo cusubma laakiin nasiib wanaag aniga mashquulaan noqday
marka sheekooyinkaas waa isoo bandhigi doona ayagoo xiiso badan qurux badan insha allah. haddana waxaan isku ognahay khayr iyo bash iyo barwaaqo han la soo dhaweeyo walaashay macaan youtube-ka loo soo dhaweeyo hadii saas isku ognahay insha allah. waan idin jecelnahay meel sidoo kale youtube-kayga haddii aad ku cusub tahay walaal macaan soo dhawo, haddii annaga ku cusubnahay na soo dhawey, subscribe-ka ka ilaawin, like, comment, share, waxyaalo aad idinkaga qosliyo oo aad la yaabtaan ayaan soo gelin doonaa insha allah. saas ayaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum.